بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. markuu ugu horeysa maanta dhammaan sidii la wada sheegay waxay noo tahay farxad, waxay noo tahay wax aan runtii guul ummadda Soomaaliyeed u soo hoyatay. waxa waaye in ummadda Soomaaliyeed madaxda waliba Soomaalida oo siyaasiyiinta Soomaalida ah intay isku yimaadaan wada hadlaan, wada hadal horseedi kara heshiis gaari karaan oo runtii dad badan waagi hore cabsi ka qabeen. waxaa caddaatay in inta la wada hadlo la heshiin karo. waxaa runtii aan aad iyo aad u bogaadinaa saaxiibaday oo qayb ka ahaa madashii mucaaradka, qayb ka ahaa runtii ku dhiiraday, ku geesiyoonaaday mabaadi'da ummadda Soomaaliyeedna soo jeediyay markii hore oo yiri mabaadi'dan waxaan u baahannahay in la ilaaliyo, Soomaalidu ku wada jirto. marka dambena ku dhiiraday inay qalinka ku duugaan, ku dhiiraday. waa bogaadinaa, waa runtii waa geesinimo. xukuumadda federaalka ee Soomaaliya runtii ugub inay noo noqoto annaga laftigeena in mucaaradkii Soomaaliya iyo xukuumaddii federaalka ee Soomaaliya inay inta wada hadal galaan, wada hadalkaas heshiis ku dhamaado, iyaduna waa guul ummadda Soomaaliyeed soo hoyatay. waa example ama misaal runtii wanaagsan oo ku dayasho mudan waaye. sida la wada sheegay waxaan ku baaqaynaa annagoo wada dhan oo isgarba taagan, waxaan ku baaqaynaa inta maqan laba qaybood ay ku kala maqan yihiin. qayb waxay ku maqnayd xukuumaddan runtii arrimihii ay yidhaahdeen masiiriga ahaa oo ay yidhahdeen waxbaa laga bedelay oy ku maqnayd. intii ku maqnayd horta bal inay ku soo laabato oo ay timaado. intii kale ee ku maqnayd laftigoodu xukuumaddani u joojin maysana bal horta inay arkaan inay u joojinayso oo ay gogol fidinayso. maanta waxaan ku wada faraxsannahay laba bilood oo 25 bishii Juun ka soo bilowday wada hadalladii soo socday maanta soo gaaray 25 August maanta aan joogno inay guul ku soo dhamaatay ayaan runtii wax loo dabaaldego oo lagu wada farxo ayay noo tahay. dabcan waa horu socodnimo waaye. Soomaaliya horaa u socoto aan inaan wada hirgelino oo aan u wada dhaqaaqno dhismaha dawladnimadeena iyo dimuqraadiyiintu qof iyo cod waxaa weeye in dadweynaha Soomaaliyeed loo geeyo ammaanadoodii loo xilsho oo ayagu madaxdooda soo doortaan. in la hormariyo siyaasadda Soomaaliya waxa weeye in xisbiyo iyo ururo lagu soo galo, iyaduna waa horumar kaleeto. wixii dhiman oo kaleeto insha Allah tacaala xilligeeda ayaa loo tagayaa sidii aan wada horumarin lahayn Soomaaliya siyaasad ahaanna ay horumarin lahayd, heshiisna ay ku wada ahaan lahayd. aad iyo aad ayaan maanta arrintaas uga mahad celinaynaa. Soomaaliya ha guulaysato. Soomaaliya ha guulaysato waxa waaye spirit ama ruux waxay ku dhisan tahay waan wada guulaysan karnaa. inaan qolo dhihin anaga guulaysanayna kaligeen inaysan dhihin, inaan wada guulaysanayna wax fiican tahay. marka Soomaaliya ha guulaysato, Soomaaliya ha israacdo, Soomaaliya ha noolaato. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.